maalin anoo social media isticmaalaya iyo abaan arkay xayisiiskan kadibna waan apply gareey waxaan nimid hoolka Sonyo markii aan nimid waxyaabo aad ii soo jiiday waan kula kulmay waxa kamid ahaa sida yacni inaan training aad u sareeyo aan helay sida inaan public speaker ka kula aan sare u qaaday markii aan halkan imiday wax kasta waxay ahaayeen wax cusub ardaydu waxay ahaayeen arday cusub deegaankuna wuxuu ahaa deegaan cusub barnaamijka xirfadii ugu muhiimsanaa ka bartay waxa kamid ah kow siyaabaha CV-ga loo qoro waxyaabaha kale ka bartay waxa kamid ah communication skills-ka soo kale waxaan ka bartay soft skills-ka looga baahan yahay qofku intaanu shaqada gelin inuu barto waxyaabaha ugu badan ee muhiimka ah aan ka baranay intaan ku jirnay training-ka waxa weeyaan critical thinking iyo problem solving sida loo xaliyo dhibaatooyinka runtii maanta waxa la joogay nin dhalinyaro oo kamid ahaa ardaydii ka qalin jebisay barnaamijka loo yaqaano core life skills-ka waliba qaybta ganacsiga oo runtii aan aad ugu bogay sidoo noogu soo jeediyay iyo guusha uu ka gaaray nolosha kadib markii uu training ka dhameystay sidaas salaamada aniguna doonaya runtii inaan kamid noqdo dadka ganacsiga ku guuleysta ee ganacsigooda sameeysta markay barnaamijka insha Allah dhameeyaan soo kale waxaan rajeynayaa xirfadaha halkan aan ku bartay inaan noloshayda wax badan kaga bedeli doono waxaan mahadnaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo noo fududeeyay inaan tababarkan aan ka mid noqdo mar labaad waxaan u mahadnaqayaa Sonyo iyo SOS waxaan rajeynayaa in la sii badan doono ama la sii kordhin doono training noocan oo kala oo faa'iidooyin badan u dhalinyarada bilaa camalka Dallada dhalinyarada Soomaaliland ee SONYO waxay soo qaban qaabisay kulanka sanadlaha ee barnaamijka adkeysiga dhalinyarada kulamo kala duwan oo ku saabsan barnaamijka adkeysiga dhalinyarada ayaa loo qabtay waalidiinta iyo tababarayaasha ardayda 5 dugsi sare oo barnaamijkan ka bilaabmayo inta kadib barnaamijka adkeysiga dhalinyarada ayaa laga bilaabay 4 dugsi sare oo ku yaala magaalada Hargeysa iyo 1 dugsi sare oo ku yaala magaalada Arabsiyo waxaana la tababaray arday gaaraysa 139 arday oo lagu tababaray xirfadaha barnaamijka adkeysiga dhalinyarada sidoo kale tababaro kala duwan oo lagu tababaray arday jaamacadeed oo tiradoodu dhan tahay 75 arday ayaa la baray xirfadaha shaqo raadiska iyadoo laga caawinayo siyaabaha kala duwan ay ku heli karaan fursado shaqo iyo goobaha shaqooyinka ay ka heli karaan mudadii aan maxay ahayd ku jirnay training-kan waxaan la baray xirfadihii aan ku shaqo tagi lahayn waxaan ka bartay qaabka maxay ahayd loo CV-gaaga aad u hagaajisanay sideed u prepare gareynayso barnaamijka waxaan ka faa'iiday CV-ga sida loo qoro iyo qaababkiisa kala duwan sidoo kale waxaan ka faa'iiday interview-ga marka CV qorto waxa kuugu xigaya maxay interview-ga qaabka loo qaadiyo waxyaabaha la weydiin karayo noocyadu noqon kara qaybihiisa waan ku rajaynayaa shaqo helo waxaan u mahadnaqayaa Ilaaha subhanahu wa ta'ala noo hirgeliyay waxa kale oo uu mahadnaqayaa Sonyo waxa kale oo uu mahadnaqayaa hay'adda Save the Children mashruuca Lotif waxa kale oo qayb ka barnaamijka maalgelinta ganacsiga barnaamijkan oo ay ka faa'iideysanayaan 100 dhalinyaro ayaa waxa la baray xirfadaha ganacsiga waxaana dhalinyaradani ay ugu tartami doonaan fursado maalgelin ganacsi oo guuleystayaasha ugu fiican loo maalgelin doono fikradahooda ganacsi Dallada dhalinyarada Soomaaliland ee SONYO waxay soo qaban qaabisay kulan ballaaran oo ku saabsan sidii hablaha dhalinyarada ahi u heli lahaayeen fursado shaqo iyo maalgelin ganacsi kulankaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin siyaasiyiin iyo ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu lafaguray caqabadaha iyo fursadaha horyaala helidda shaqooyin iyo maalgelin ganacsi oo ay helaan hablaha dhalinyarada ee reer Soomaaliland
bismillaahi raxmaani raxiim dallada dhalinyarada jamhuuriyadda ururada dhalinyarada Soomaaliland ee SONYO oo kaashanaysa sanduuqa horumarinta dimuqraadiyadda ee qaramada midoobay ee UNDAF ayaa waxa ay qabteen kulamo dhowr ah oo ay ka soo qabteen gobolada dalka kii nationalka ahaydna ay Hargeysa ka qabteen marka waxyaabaha aan ugu talagalnay lagaga hadlay kulankaas wuxuu ahaa in dib loo eego siyaasadaha khuseeya dhalinyarada sida siyaasadda shaqo gelinta siyaasadda caafimaadka iyo siyaasadda waxbarashada oo la eegayay inay siyaasadahaasi ku jirto mabaadi'da isla xisaabtanka bulshada iyo dawladda ama bulshada iyo maxay raadaan mas'uuliyiinta dawladda taasi oo dhalinyarada ka soo qayb gashay dhammaantood ay soo jeediyeen mabaadi'da lagu daro dalladu waxa kale oo ay ka aasaastay gobolada dalka 6 gobol waaweynaa madalo ama dhalinyar groups oo la xisaabtamaya mas'uuliyiinta